taariikhdu markay ahayd bishii Oktoobar 17keedii sida aad la wada socoteenba waxaa la gubay ganacsi aad u weyn oo ku yaalay wadada weyn ee Westerville magaaladaas Columbus, Ohio. ganacsigaas oo ka koobnaa biibito, hool lagu dhigo xafladaha, maktabad islaami ah, timajare, meel canshuurta lagu xareeyo, meel gaadiidka xamuulka ah lagu xareeyo iyo masjid Salaama. nasiib wanaag waxa ay boolisku sheegeen in dabkaas uu ka badbaaday masjidkii la oranayay Salaama. sida ay boolisku ay sheegeen waxaa falkaas lagu tuhunsan yahay inay dad ka dambeeyeen. arrintaas baaritaankeedana wali waxaa ku hawlan booliiska iyo FBI-da. waxaa la isla dhex marayaa in arrintani ay ku sal leedahay khilaafaad horay u jiray oo ka dhaxeeyay dad ka tirsan labada masjid oo ku yaala magaaladaas Columbus, Ohio, oo la kala yiraahdo Masjid Salaama iyo Masjid Ibn Taymiyyah. waxaan helnay warqad uu soo diray qareen matalaya Maxamed Xasan oo ah maamulaha la wareega dhulkaas oo lagaga codsanayay imaamka iyo maamulaha Masjid Salaama inaysan ka soo agdhawaan karin goobta masjidku uu ku yaal. taasina waxa ay dhalisay in Masjid Salaama uu khudbado iyo waraaqo ay uga jawaabaan arrintan. sida ku taala warqad jawaab oo ah tii ay u soo direen qareenka oo ay qoreen maamulka Masjid Salaama loona diray maxkamadda Homeland Security-ga iyo FBI-da iyo dad kale. waxa ku qoran in ay rumaysan yihiin in Masjid Ibn Taymiyyah maamulkiisu ay rabaan inay la wareegaan Masjid Salaama, arrintaas oo ku salaysan fikradaha diinta ay kala qabaan labada masjid oo kala duwan iyo soo badashada dadka Masjid Salaama ku tukada. haddaba daawadayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi u gaar ah wargelin oo aan ka soo qaadnay maamulaha rugta dhismaha gubtay ee Masjid Salaama uu hoos yimaado. maalintii dhaweed markii ay ku horeysatay TV-ga NBC-da oo magaalada waxaa tiri dad aan buuq naga dhaxeeyay baa noo hanjabay oo hanjabaada noocaas ah sida ay ku timid. waa hadda walaalaha volunteer-ka ah masaajidka hanjabaado kala duwan inay ka yimaadeen, qaar aniga maaragtay igu hanjabeen, qaar hadda aan kuu sheegay anigoo hataa landlordkii meesha la joogno gurigiisa Dayton ay hanjabaadaas ay sameeyeen, qaar ay maaragtay hanjabaadaas ay ku sameeyeen rag meeshay wax naga wada dhexeeyeen oo liiska soo wareejiyey oo yarka Maxamuud garam laba walaalihiis ah, in hataa habeenkii dabku u dhacay maalintii ka horeysay mid volunteer oo masaajid ka socda u yimid uu ku yiri maaragtay maadaama maxkamad lanoo ballamiyey oo eviction uu ballansan yahay, yani court hearing, courtiga asaga ha imaanina si micnaha meeshii aan u diraagarayno courtigii iyo case-kaas. marka ayagana ay u sheegeen annaga iyo landlordka ninka carabka oo meesha iska leh iyo Maxamed Xasan kulligeen isku nidaam baan nahay, meeshan waa imaanayna goobta ayada ah, wixii lanooga baahan yahay oo testifying ahna waan sameynaynaa. markaasna uu ku hanjabay ninkii u yimid ayaga oo masjid ka socday in macnaha wixii dhaca la arki doono meeshaas inaysan nabad ka dhici doonin, sida ayada ku hanjabay. waxaa kaloo jirtay hataa adiga mar aad wareysi la yeelatay mid ayaga kamid ah volunteerska masaajidka in hataa website-kaaga uu ku jiro bartamaha aakhir haddaad dhegaysatay meesha u dambeysa inuu maaragtay dhaaranayo uu leeyahay haddii arrintaasi meeshatan annaga laynoogu soo galo inaan nabad lagu noolaan doonin oo ay wax dhici doonaan. marka hanjabaadaha noocaas oo kale ah iyo kuwo fara badan oo maaragtay halkan aan kusoo koobi karin oo mar walba iska socda threat, yani maaragtay hataa masaajidka dhexdiisa hataa yani laga leeyahay in meeshii anagina aan wayno cid kalena ay soo gasho inaysan maaragtay dhacaynin, dadkii ay u tusayaan siyaabo kale. marka waxaasoo idil waxay ku tusi karaan ama kugu liid garayn karaan in meeshii wax jiraan, laakiin dabkan yaa huriyey, yaa ka dambeeya, meeshaan dhibaatadan weyn gaarsiiyey Allah subxaanahu wa tacaala yaa garanaya, mana garanayno oo ma dhihi karno hebel iyo hebel wey, laakiin in dispute-kaas iyo waxyaabahaas lanagu yiri way jiraan oo muranka asaga meesha u yaalay. waa gartay dhowr jeer horena waa labada dhinac waa wareystay, aday hataa waa ku wareystay, laakiin waxaa moodaa dadka sheekadan ka warqaba dadka magaalada degan Soomaalida in laga dhigay laba masaajid oo yani masaajidka la meesha saaraya, labadaas oo kala ah masaajidka Ibn Taymiyyah iyo masaajidka Salaama oo meesha ruuxeeda ku yaal. marka maadaama adigu dadku ay farta kugu fiiqayeen qofka meesha la wareegina tahay, maxaa ku lug leedahay ama yani roolkaaga muxuu yahay masaajidka Ibn Taymiyyah? well aniga horta masjidka maamulkiisa ayaan in muddo ah ka mid ahaa, xaqiiqatanna waxaan uga mid ahaa qaab volunteer ah. masaajidina waad garanaysaa maar dad volunteer isu yimid
baa hagaajiya wixii markaas maskax isu geeya isku dubaridkiisana ka shaqeeya. Marka individual waxaan ka mid ahaa volunteerska masjidka Ibn Taymiyyah howlwadeennadiisa ah. haddana markii dambe yani muhiimadii iyo doorkan u hayay wadaad kale hadda meeshii jooga xafiiskii oo hawshii wada. aniguna dee shaqooyin kale iyo umuuro kale waan maarata ku mashquulay. wixii laakiin dacwo ah waa mas-uuliyad qof walbo muslim ah saaran in meel kastoo haboonaan yani ku haboon inuu kasii wado ay tahay inuu kasii wado. marka volunteerska boardka waan ka mid ahaa, laakiin yani dadka ku qoran oo masaajidka iyo trusteegiisa iyo yani maaragtay final decision makerska ah oo meesha ku qoran oo biyo kaba dhibcaanka ah anigu kamid maan ahayn. laakiin volunteerskaas oo howlaha maaragtay day to day wixii markaas looga baahan yahay qof walbana ay u furan tahay, xataa adiga Cabdisalaan ah kasoo qaybgali kara ku furan, qof noocaas oo kale ayaan kamid ahaa. midana waa mid aniga macnaha yani howl aniga kaliya aan isu diray oo aan qabtay oo rag kaloo dee markaas ganacsada ha ahaadaan ama walaalo kale ha ahaadaanna ay yani maaragtay qeyb ka qaateen ay ahayd. laakiin masjidka Ibn Taymiyyah iyo imaamkiisa iyo ragga kale oo howlwadeennada board ku jira intaasba inaysan shaqo ku lahayn. marka waa tii haddaan kuu sheegay haddaay oo qofka si uu meesha usii haystoo kale walaalahan inay meesha usii joogaan wax kastoo kaar ah oo possible ah inay xoqaan bay xoqayaan, hadday tahay buhtaan, hadday tahay been, hadday tahay mushkilado kale, hadday tahay umuuro mar ay dadkii u tusaan in masaajid uu soo duulay, mar inay u tusaan in qabiil soo duulay, mar inay u tusaan macnaha ganacsado kale inay soo duuleen marbasi. marka waxay ka mid tahay waxyaabaha ummadda lagu jahawareeriyey oo loo baahan yahay Allah subxaanahu watacaala looga baqo oo ciddii waxaas faafinaysana ay ka waantoodo. dadka beriga ka ah iyo masaajidka beriga ka aan meeshii la keenin. ummadana waxaan maaragtay leeyahay arrimaha noocaas oo kale inay iska hubsadaan. intii ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay kitaabkiisa maaragtay in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu, haddii qof yani faasiq ah uu maaragtay idinla yimaado arrin iska cadeey arrinkaas iska hubsada. wax saliim ah oo qofka walaalka aad waxba u dhimin in qofkii asaga uu ka shaqeeyo, waxa dhagahaaga ay diidayaan inay maqlaan ama mas-uuliyad ay kaa saaran tahay carabkaaga inuu ka hadlo ina asamca walbasara walfu-aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula, in qofkii uu iska jiro. midda kale oo idan dhacis waxa weeyaan dhibaato kale leedahay dadku waxaan wadwada oo kaga sheekeysanaya goobaha maarata fadhi kudirarka ama meelaha shaha lagu cabo kale arrintan heerarka aan loo baahnayn gaarsiinaya. waa inay ogaadaan macnaha xasanaadkoodii ay sameynayeen ilahay ugu dhawaanaya subxaanahu watacaala inay cid kale siinayaan, cidda ay xamanayaan oo markaa beenta ka sheegayaan ama buhtaan ka sheegayaan in xasanaadkoodii uu maarata soo aadayo. marka ciddii doonaysa in wax xaqiiqadeeda ogaato right sourciga waa aniga inay iga wareystaan, sida haddaba macnaha Cabdisalaan aad ku mahadsan tahay aada iga wareysatay. waa tahay daawadayaal fari kama qodna faanole.